bal nin la dilay oo Soomaaliya oo la dilay meydkiisa waxa loo jiidayay oo maalin oo dhan loo jiidayay waa wax la yaab leh Soomaali baan ogeysiinayna xamar baan ogeysiinayna dawladda dhan baan ogeysiinayna maxkamadahana ogeysiinayna madaxweynahan ogeysiinayna qof meeyda oo naftu ka dhacday gaari Cabdibilaa oo dawladdu leedahay oo taariikhadii dawladdu ku buufsan tahay in inta oo calaamadii leh oo calaamadii canshuurtii dadweynaha laga qaaday lagu soo gaday in ninkii canshuurta laga qaaday intii lagu dilay in mas'ala lagu jiido waa nafsi darrada ka mid tahay inay intay dilaan baabuur dabada uga xiraan foolxumada inta la eg iyo colaadda inta la eg waa wax noo dhibanaa December 2025 waxaa deegaanka ceelasha biyaha ka dhacay weerar abaabulan oo lagu qaaday beerta Xaaji Cismaan Aadan oo lagu dilay marxuun Bashiir Cabdullaahi Macallin laguna dhaawacay dad kale lana burburiyay dhammaan hantidii iyo agabkii beerta yaalay waxaana weerarkaasi geysay taliyaha saldhigga ciidanka booliska ee deegaanka ceelasha biyaha Maxamed Xaashi Cagay iyo ciidan uu hogaaminayo dilka kadib waxaa dhacday in marxuun Bashiir lagu daba xiray gaari Cabdibilaa ah oo lagu jiiday maqaarkeena sida uga dhacay sidana loogu fiiqay laguna had gudbaday karaamada iyo sharafta aadanaha iyo islaamnimada waxa la yaab leh in 2025 baabuurtii booliska Soomaaliyeed leedahay meyd muwaadin lagu daba xiro oo lagu jiido haddaba waxaan halkan ka cadeynaynaa in nalagu ku soo weeraray beerteena iyo dhulkeena in aysan jirin wax dacwad xiriir ama wargelin oo lala sameeyay milkiilayaasha beerta Xaaji Cismaan lambar 3 in markii la dilay marxuun Bashiir kadib lagu daba xiray gaari Cabdibilaa ah laguna jiiday dhulka sidaasna uu maqaarka u fiiqba in meydka marxuunka lambar 4 in meydka marxuunka aan la duugi doonin ilaa uu helo cadaalad in haddii dulmigaasi gacmaha laga laabto uu horseedi doono cadaalad darro baahsan waxaan halkan baaq uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha mudane Xamse Cabdi Barre guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka taliyaha booliska Soomaaliyeed taliyaha qaybta guud hay'adda garsoorka dalka maxkamadda ciidanka qalabka sida xeer ilaaliyaha qaranka iyo cid kale oo ay khusayso